Maxkamadda magaalada Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa waxaa la soo taagay 3 dumar oo lagu eedeeyay inay afduubteen haweeney 23 sano jir ah isla markaana ay fududeeyeen kufsigeeda. Maxkamadda Gaarisa ayaa amartay in muddo 7 maalmood ah haweenkaasi xabsiga lagu hayo intay socoto kiiska loo haysto ayadoo booliska ay sii wadayaan baaritaanada kiiskan. Haweenkan ayaa magacyadooda iyo da'dooda lagu kala sheegay Ayaan Axmed oo 23 sano jir ah, Fartuun Axmed 19 jir ah iyo Ifra Cabdi oo 22 jir ah. Kiiska ayaa waxaa kaloo qayb ka ah qof kale oo afraad oo da'diisa ay ka yartahay 18 sano jir, waxaana la amray in la geeyo xarunta carruurta. Madaxa booliska ee qaabilsan baaritaanada ee ku sugan saldhigga booliska Iftiin ayaa maxkamadda u sheegay in loo baahan yahay waqti dheeraad ah si loo dhammaystiro baaritaanada. Dhibanaha kufsiga loo geystay ayaa ah haweeney 23 sano jir ah, waxaana lagu afduubtay gaari nooca Toyota Probox. Dadka afduubtay oo haweenkaasi qaybta ay ka yihiin ayaana geeyay meel cidla ah ayagoo gacanta u geliyay 4 nin oo kufsi u geystay. Ehelada dhibanaha ayaa sheegay in tuhmanayaasha ay si cad u qasbeen haweeneyda inay gasho gaariga ayadoo ay daawanayaan dadweynaha. Markii dadkii daawanaya ay su'aalo ka weydiiyeen falkooda, waxay sheegeen inay tahay gabar ay qaraabo yihiin oo la ildaran xaalad maskaxeed ayna u wadaan inay gurigeeda geeyaan. Si kastaba ha ahaatee, baaritaanada ku saabsan dhacdadaasi ayaa weli waxaa wada booliska ayadoona baaritaanada kadib maxkamadda dib loogu soo celin doono. Ibraahim Nuur Cabdiraxmaan, warbaahinta Mandera 24 Channel.